السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا نوشون ونأكسن مر لبعض. هل هذا الكم جرو ولكن شيء باين يا هذا الكوت مركز قدرير ونحتاج درتي يبين سوسون نغني هذه أنا حتى هالكي سي عم بقارنه بل هذا وقت يسوق كوبي نوصل لمصر بل هذا ما هذا الكمبيوتر صح هذا الكي يقول لي مرة بونتيجا ما تبغى يرتاح هالكي كنت على شطار لأن يرتاحين النقدان هذا الكي وهداعي وهوها أنت النقولها يعني إن بدنا يصور هاي من ليبانياشة لو ليباني إن هاي ما أنت النقدان ليبانياشة ليباني أفضل مصدر محمد وارن وهرنا فكر كأدوبة هذا يرتبط شيء براي نقول ماستر marka si loo eego oo maadaama Soomaalida boqolkiiba 3 ilaa 5 ay yihiin dad dhalinyaro ah oo loo baahan yahay in dadkan iyo dalkan hormuud u noqdaan wixii soo dhacay dhamaantood marka dib loo eegana ay yihiin dhinac walba dhibane marka la dhaho xagga nolosha shaqada wax qabadka hoggaanka maarta dhimashada dhinac walba iyaga ugu dhibana oo hadii la yiraahdo dhinacan xukuumadda iyaga way mucaaradkii waa iyaga kuwa dhimanay waa iyaga iskuulada dadka dhameeyay oo aan shaqada lahayn waa iyaga oo soo tahriibay marka aad dib u milicsato waxa soo dhibo waxay ku dhacayaan dhalinyaraduna sida aad hore uga dhawaajisay waxaad leedahay xalku wax ugu dhow yahay in ay dadkii ka mid noqdaan oo hoggaankii iyo maaragtay xukuumadda iyo maamulkii ay soo galaan taasaa midnimo lagu gaari karaa ama lagu gaari karaa marka waxaan maranayaa caqabadu dhammaan maayaan inta odayaashii shalay joogaan oo odayaasha weeye ilaa waqtigii maaragtay qabta dagaalka kadib wixii ama carta tiri ama dowlad joogay ama meel walba hataa wax soo dhigay nidaamyada soo dhisay marka anu isleedahay inaan dhibku uusan ahayn dhalinyarta kaliya dabku buu ka soo baxay odayaasha hore oo haddii odayaashu ay joogaan dhalinyartu aynan kali wax noqon karin oo aan la kala maarin marka see loo kala mili lahaa ama isleedahay wadada ugu saxsan ama ugu sahlan waayo oo ay maaragtay midnimada toobka ah gaari karaan oo qaybta sare ay keeni karaan ama ay shaqadii hoggaanka soo geli karaan kusoo dhawo mahadsantahay walaalkay liibaan horta waa run dhalintu meesha way u badan tahay 75 waqtiba ruux baa la maalaa oo waxa weeyaan la xoogsadaa dad waxay nahay guuraa ama xoolo dhaqata ama beeraley ama dabata oo waxa maanyada iyo waxaas oo dhan ma fahamtay waxa weeyaan waxa la jecel isticmaali jiray waxa weeyaan oo hawsha wadi jiray waa dhalinta halka dhibay jirana waxa weeyaan hadda dhalintaan ku arkay hal abuur malin hal abuur kuma aha oo inaad sugaan curiso ama gabay ama gaar wuxuu doonaba ahaado laakiin inaad wax ra'yi soo kordhin aad la timaado oo wax bedeli karto wax jawi meel jiray inaad jawi kala meel aad arkayso colaad ama meel dagaal ka jiray inaad nabad u bedelatay ama meel xanaaq iyo inaad farxad u bedeli karto muhiimadeedu waxa weeyaan waxa Soomaaliga hadda motor ka dhaqaajiyaha lagu dhaho afqalaadka laakiin motor la dhaho waxa lagu dhaqaajin kara Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed waa dhalinta waxa dhaqaajin kara waxa weeyaan waalidkana waxa weeyaan waxaan jeedaa dadka waaweyn wixii taliya tusaale waa loogu noqon karaa oo wixii de caqliga ugu jirin walaalka uu ku jira Soomaalidana waxa ku bamaada talada adaa ku nool iyadu kuma nool wixii talaa waa looga baahan yahay laakiin go'aamada ay noo gooyeen iyo waxyaalaha ay soo sameeyeen ilaa hadda ay ku sii dhaqmayaan anaga dhalinyaro ahaan iyo dadka iga yar nooma cunta xaqiiqdii maxaa yeelay waxay noo gooyeen inay dawladii burburiyaan dhex anagoo qaran jirno maamul kasta uu wuliyana ka raacay ha keenana caqli lagu burburiyo ha keenana laakiin markay xukuumadii jirtay soo koob in kala waxa weeyaan inay sidii ugu dhisi lahaa keenan macnaheedu waxa weeyaan
dhalinta inay hogaanka wax ka ahaato waa shardi la-aan, waxa weeyaan waa loo baahan yahay. la-aantoodna si waa loo socon karaa, sina looma socon karo, laakiin waayeelkana waa loo baahan yahay. laakiin waktiga la taagan yahay anigu caadifadii ma hayso. ninka waxaa laga yaabaa ninka waayeelka ninka loo fiirsanaya, nin aan waxaa laga yaabaa jabhadihii wax iskaga soo horjeedeen ama maamul waxyaalo isku qabsadeen ama kursi. anu danta waxaan fiirinayaa ilmahayga, lafahayga iyo dadka Soomaaliyeed. waxa weeye markaan tayda fiiriyo intii Soomaaliyeed fiiriyo waxa weeye wadankii oo dhan baa fiiriyo. hadda waxaan haysta waxa weeyaan nin waliba isaga isboqoreen maamul buu sheegtay, wax uu sheegtay, wax ta ugu daranay hadda haysata waxa weeyaan boqol calan. macnaheedu haddaan ku weydiiyo adiga ama ninka weydiihay xagee ka timid, Hebeland baa lagu leeyahay. Hebelandkii macnaheedu waxa weeyaan waa qabiil, qabyaalad caatifadaysan. waxa weeyaan haddaan ku dhaho Hebeland baan ka mid Hebeland, macnaheedu ogow ama calankaa adigu aragto noocaasa reer hebel baan lahay waa inaan isla boodno. ma fahanti innaga taa inooma cunto dad haddaan nahay Soomaali. waxa weeyaan dad islaama waa nahay, dad hal af le baynu nahay, dhaqan le baynu nahay, gees to gees. ma fahanti inaan isku tiirsanaano, isfahano oo danteena kursigaana hal nin buu sideeda bateeqa in la isku dhaganaado caadifad aad shaleebaadi mucaadanadiisa iyo waxaasna waa laga fiican yahay. kursigan oo noo tali adigana waa amiir aan u duceyno, waxa weeyaan aan isqabsano wixii dhaliil way jiraysaa, dhaliishu se laakiin ma aha dhaliil ereyga la dhaho dadku si khaldan bay fahmaan. waa toosin war halkan ay naga dulashay aan sida ay looga hagaajiyo. dawladdu markii la dhiilay waxa weeyaan halkaas ka gaabiseen, saa u hagaajiya maaha. laakiin wixii oo dhan in la bedelo oo waxa weeyaan la burburiyo wixii intaasna la dhisayo. marka waxaan dhihi lahaa waa isu baahannahay. waxaa la dhihi jiray burqabi iyo biyaqaba way isu baahan yihiin. marka annaga dhalintii iyo odayaasha waan isu baahannahay. taasaan aanu dhihi lahaa. aada mahadsan tahay maxamed. waxaa aaminsan yahay in dhalinyarta iyo odayaashu ay isku baahan yihiin ay wada joogi karaan, laakiin barnaamijkan toddobada madax ah laga soo guuro halkan lagu iloobo si hal Soomaaliyeed loo gaaro. sababtoo tusaalahaan haddii aan dhibabka hal iyo laba ka taabano ugu waaweyn oo dalku ka degi lahay waxa weeye midkii xanaaqa oo dowladda dhexe isfahmi waayaanba wuxuu tagaa Ethiopia iyo Kenya iyo Imaaraadka. mana naqaano silsiladda halka ka xiran tahay, halkaas waa arrin wareer. marka ama ma la isdhihi karaa arrintaasi laftigooda dhalinyarta waa ku maran yihiin oo odayaasha keliya maaha, nimanka ayago laftooda dalka dibaddooda u baxo oo meelaha qaar kasoo kalluumaysto. adoo soo koobaya barnaamijka gabagabadiisaan kusii shaqeynaa, marka soo gaabay mahadsan tahay. ha dhalinyarta haddii ay tahriibto badaha ku daadatay odayaashana meel dhalinyarta la jeeb waxay ka raadsadeen Yurub. odayaashana waa inay jeeb ka raadsadeen dirsaalaha si ayagana soo kalluumaystaan. barnaamijka gabagabadiisa ayaan ku siqeynaa. marka hal iyo labo ayaan siin doonaa kolley walaalka Ibrahim iyo Maxamed. marka si aan usoo gunadno barnaamijka maxaa dheerayd ama taliya saacada ugu dambeysa ama fariintaada ugu dambeysa shacabka Soomaaliyeed ee dhalinyarta ah iyo odayaasha laftigooda laga maarmo cuqaal iyo wax kala bay leeyihiin iyo xukuumadda. maxay tahay fariintaada ugu dambeysa gaarsiinaysa? soo koob ada soo koob yahay laba daqiiqo haysta. fariintayda ugu dambeysa aan leeyahay Soomaalida nin ayaa wuxuu yiri haddii ay Soomaalida meel isku yimaado Soomaaliya toos ah la qaadaa hadda lagu mas Soomaaliya toos haddii halka leeyahay loo ninka siyaasiga ah oo halka dhageysto markaas waa maxabiiseen waa diyaar, laakiin si dhab ah waa inuu dhana Soomaaliya toos taageera kii Soomaaliya toos hadda kiina taag daran taageera wariye Soomaalida iska taageerada ayay wax ku tahay.
oo hadda qurba joogti iyo waxa hadda dibadaha u soo baxay in badan oo kamid ah ehelkoodii iyo wuxuu dadka taageera ayaga waay marka waxaan leenahay oo nimanyo todobooyinkan madaxweyne nama qabatee aan hal madaxweyne ku tawfiiqno aan gacmaha isqabsano Soomaaliya meel kasta ay joogtaan hadalkayga saasaan kusoo gogayna billahi tawfiiq aad ay maasanta Ibrahim kaasi wuxuu ahaa Ibrahim oo naga qayb galay barnaamijkii inta barnaamij soo gabagabeeyeen isagana waxaan sii doonaa fursad 2 daqiiqo Maxamed soo gudbana dalkay waad mahadsantahay walaalkay anu talaya baan ku darsan lahaa intaanan intaas horta nimankan horjoogayaasha horta waa in laga tashado dhinac laga soo istaago haddaan ku daro maxaa yeele horta way kala fogeynayaan oo hadda yana kala fogeynaya nimankan horjoogayaasha maamulada haysta odayaashan waaweyn ha maamulada haysta waxa weeyaan ama qablahaadaan soo haanayeen ama qolyahan afduuban qaarkood ka soo mid ahayeen ama kuwii kale khadka cagaaran ee Muqdisho u bixiyo waxay doonaan waxa ka soo mid ahaadaan hada qayb koonfur u badan tix gabay oo tima cadaan kulli eraya ka soo qaadanaya wankii weynaay Soomaaliyeed ku marka waxaan dhihi lahaa tixdiisa baydadka qaarkood waxa kamid ahaa uu leeyahay nimankii malmalay waa kuwii maali kaligood nimankan hadda markii la leeyahay malmalay waa kuwii maali kaligood nimankan hogaami kooxoodyada ah iyagoo ma de maali xitaa haddaad dhalinta waxaan u wada waxaween haddaad xitaa kursigaa saarto isagii unbaa maalaya haddana waxa weeyaan qarankeeni oo dhan waxay ka doortay tixdu way sii soconaysaa wuxuu leeyahay nimankii mugoodu ha maali la casuumo bal u fiirsada maamul goboleed kasta ama Addis baa loogu yeeray ama Imaaraadka Sacuudiga u yeeray ama Kenya u yeeray mugooduba intay qaadaanba waa maalinta la casuumo madaxa loo soo saaraa wad fiican tahay halka kaga wad ma fahantay marka tixdu way sii socotay wuxuu sii dhahay wal maanta ba maalka ay la qomanayaan la geesmarin waxa weeyaan macnaheedu waxa weeyaan dhalinyaro hadii hadda la baraarugin wallahi meel kale laga doo maanta tixdu hoos marka u sii socota maanta waa malka ay la qomanayaan la geesmarin ma fahantay hadii la geesmaro waxa weeyaan khalaastay tixdu waxay sii leedahay waxa weeyaan wuxuu leeyahay meel kale ka dhacaysa marka waxaan dhihi lahaa dhalinyaro hala baraarugo nimankan dhinacna ha looga soo istaago ta kalena waxa weeyaan nimanyo isku duubni ayaa wax lagu noqon karaa caadifad iyo reer hebel ama qabyaalada inay geynayso hadda waxa ku jira Soomaaliyeedkii baa shaki ku jira dhul Soomaaliyeed baa shaki ku jira dadnimadkii baa ku jira wixii lahaanshaha ereyga Soomaali ayaa shaki ku jira bad iyo bari iyo dadnimo ma fahantay marka waxaan dhihi lahaa nimanyahoon anigu talahaantayda bal inta dhalinyaro la isku tashado oo nimankan laga madax banaanaado oo maskaxiyaan ahaan siba balaayo waxay tixdiisa waxa kamid ah suntay nagu mudeen waq wiilashii la ismarasi waa Abdullaahi Timcada tixdiis kumad sunbay nagu wada mudeen odayaasha marka sunta intaynu teetana u raadsano iska saaro nimanyo waxaan dhihi lahaa waxa weeyaan danteena iyo danta dadka iyo shacabka aan garanno marka intaasan kusoo gabayn lahaa Soomaaliya ha israacdo waxaan rajaynayaa guul iyo gobonnimo insha Allah rabbina wassalaamu calaykum aad ma santahay walaalkay Maxamed barnaamijkan intaas ay kusoo gabagabeyn doonaa هذا هيسكن هو Soomaali baa dhalinyaro midnimo insha Allah taala tani inta dib ka kulmi doono barnaamijkan lama toddobaad ka dambe waxaan kaloo doonaynaa hal laba kasi xasuusiyo toddobaad ka dambe barnaamijkan kusoo qaadan doono waxa kamid noqon doona insha Allah taala qayb kamid ah ciyaartii nasoo dhaaftay ee dhacday ee Soomaaliya Zimbabwe iyo qaybteeda labaad markii lugta dambe ay soo gabagabowday ayaan ka soo wada hadli doonaa oo falanqeyn doonaa marka tani toddobaad ka dambe inta saashay ko saasayata aad waa masantahay waxaanu kusoo koobaynaa barnaamijkii galabta soo bilaabnay taxanaha noo ahaa tani intaynu ka gaari doono toddobaadka dambe barnaamijkan barnaamij lamid ah intaynu ka gaari doono waxaan kaga mahadcelinaynaa barnaamijkan daawadashadiisa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa Sheekh Ibrahim oo barnaamijka nagala qayb galay galabta aad waa mahadsan Sheekh Ibrahim iyo Maxamed aad waa mahadsantahay dhammaantiin waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo billahi tawfiiq